السلام عليكم صاحبada igu xiran iyo kuwa cusubay lumida xasuusta waa mid ay sababaan xaalad xumid ku jirid isku dhaxyaacid ku dheehnaanta iyo walwal ku sugnaanta hadday saddexdaasi kugu kulmaan in ka badan intii caadiga ahayd waxay waxyeelo daran u geysanayaan dhimirka maskaxdaada waxayna horseedi karaan inay kugu dhacaan xanuunada waalida xanuunkan ayaa ah mid aad iyo aad ay ugu nugul yihiin dadka ilowshaha badan waayo wuxuu qaataa sanado inuu soo muuqdo oo si tartiib ah ay kaaga sii lumaysaa xasuusta ugu dambeynna waxaadan awoodi doonin inaad falcelinta nololeedka deegaanka kaaga baahan yahay aad si caadi ah u wajahdo oo waxaad noqon doontaa qof waalan oo kale banaanadana dowrsada laakiin waxaan halkan kuugu soo gudbinayaa maanta 5 ka mid ah sababaha keeno ilowshaha tirada badan kuwaasoo si dabiici ah aad iskaga daweyn karto aadna u baahnayn inaad daawo u qaadato si warbixintan ay u faafto saaxiib laagtaada waa inoo muhiim waxayna horseedaysaa in dadka kale ay sii arkaan haddaad ka heshana subscribe-ka inoo saar aan ku bilowno hurdo yarida inaadan helin hurdo kugu filan ayaa laga yaabaa inay tahay sababta ugu weyn ee aan la mahadin ee hilmaamkaaga hurdo yar oo nasasho ah ayaa sidoo kale horseedi karta isbedelada niyadda iyo walaaca taa oo iyadana gacan ka geysata dhibaatooyinka xasuustaada daawooyinka aad isticmaasho isticmaalka daawooyinka maskax dejiyaasha ah sida tranquilizer oo la siiyo qofka maskax furanka iyo isku dhaxyaaca ku dhaco taa iyadana waxay waxyeelo raagto ku samaysaa maskaxda iyo daawada la siiyo dadka dhiigkarka qabo qaarkood xilliga uu ku kaco dhammaantood waxay keenaan fadhiisin maskaxeed iyo jahwareer toos ah taasoo kugu adkeynaysa inaad fiiro gaara u yeelato waxyaabaha kugu cusub haddaba la hadal dhakhtarkaaga ama farmashiyahaaga kugu dhow haddii aad ka shakisan tahay daawo cusub oo aad qaadatay inay waxyeelo yar xitaa u geysatay xasuustaada waxayna yaalaan daawooyinkan meel walba waxaana ka mid ah daawada lagu magacaabo Paxil waxaa loo isticmaalaa walwalka waxaa ku jira kiimikaad dhibaato u geysan kara xasuustaada sidoo kale isku dheelitirnaanta maskaxdaada ayay qalqal gelin kartaa waxaana loo qaataa daweyntan murugada waxaa tani uga kaaftoomi kartaa adoo duceysta rabbigaaga ku xirma farxadna kaama foga waqtigaas balse ka digtoonow isticmaalka dawadan waa haddaa ka fikirayso badqabka maskaxdaada waxaa ka mid ah daawada loo isticmaalo kaadiciliska sidoo kale taasoo lagu magacaabo Detrol iyo daawada loo qaato xasaasiyadda qabowga labalabada iyo hurdo yarida qaabka loo qaato daawadan ayaa ah in ciridka laga siiyo cirbad talaalid durida muruqa gacanta ama boomaata ahaan waana mid ka mid ah sababaha keeno xasuus guurka iyo ilowshaha tirada badan haddaba iska ilaali daawadan iyo kuwa la midka ah qanjirka thyroid oo aan firfircoonayn qanjirkan lagu magacaabo thyroid wuxuu saameyn ku yeelan karaa xasuusta iyo sidoo kale hurdo xumida iyo isku dhaxyaaca kuwaasoo si isku mid ah u sababi karaan ilowsho badan baaritaan dhiig oo fudud ayaa kuu sheegi kara haddii tiroidkaagu si sax ah u gudanayo shaqadiisa iyo haddii kale cadaadiska iyo walaaca tirada badan wax kasta oo sii adkeeya xoojinta iyo qufulidda macluumaadka iyo xirfadaha cusub waxay horseedi karaan dhibaatooyin xagga xasuusta ah cadaadis iyo walaac ayaa biilka buuxinaya labaduba waxay faragelin ku yeelan karaan feejignaanta waxayna xanibayaan samaynta xasuus cusub ama soo celinta kuwii hore isku buuqa kugu furan calaamadaha caadiga ah ee niyadjabka waxaa ka mid ah murugo iscaburin dhaqaaq la'aan iyo yareynta raaxada ama inay jirinba waxyaabo aad caadiyan u riyaaqdo sameyntooda ilowgu sidoo kale wuxuu calaamad u noqon karaa niyad jab ama cawaaqibkiisa haddii aad ka sheeganayso xasuus xumi waxaa habboon inaad wada hadal la yeelato dhakhtarkaaga si aad u aragto haddii ay jiraan sabab kasta oo dib loogu noqon karo oo salka u ah dhibaatadaada waxyaabaha aad samayn karto oo la iskula taliyana waxaa ka mid ah inaad in badan huruddo bedelida daawo aad qaadatay ama barnaamij yareynta walwalka ah ayaa xasuustaada dib u soo celin karaa dhammaanteen waxaan alla ka baryaynaa caafimaad waara